السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيرنيدا سوماليات سلام الله عليكم. سلامة السلام كان سلامي. dad badan ba waxay soo wareysteen alaabaha si ay ugu diri kartiin Boosaaso, Hargeysa, muxuu ahaa meelaha kala dhulka kala Soomaaliyeed. waxaan rabaa inaan xaqiijiyo inaan u dirnay geeda camba ah, geeda muxuu ahaa orange ah, iyo geeda tufaax ah. meelo badan u kala dirnay. meelaha u dirnay number 1 waxa uu ahaa oo isku daynay number 1 Boosaaso. waana ku guuleysanay tufaaxii iyo orange-gii caralaanaha yaa dirnay. caralaantina maasha Allah waxay soo baxeen ayagoo maasha Allah ah. kulay intii iga codsataa dadna hore waa u tusay oo rabaan inay arkaan geediya caralaanta oo dirtay meesha ay marayaan. waa la socodsiin karaa meel beer Boosaaso ka dhow oo carmo la dhaho ayaa lagu abuuray. walaalkeen numberkiisa ninka beerta iskale numberkiisa in siin karaa waad xaqiijisan kartiin. tufaaxa waa Mbugo apple iyo waxa u dirnay orange-da pixie lin macaanta pixie iyo tangerine ya u dirnay iyo orange noocyada kale intaba maasha Allah si aan caadi ahayn ba u soo baxeen. cambaha sidoo kale waa u dirnay wali asaga cambihii waxa waaye dhitaankiiba ku jira oo markii saan loo waxay naasiri baa la geliyaa geedka caralaan. laakiin tufaaxa hore baa ka abuuraysaa. tufaaxi maasha Allah horta bulshada uu leeyahay waxa waaye isla markiiba dhulku la qabsado isla markiiba wuxuu ahaa waxa soo baxay booq oo soo saaray after 14 days ubixi buu soo saaray ama booq buu soo saaray xay dadka dhahan inta buu soo saaray. waa in soo sawiri karaa sawirada waa inoo wadaagaya qof walba oo muxuu ahaa videogayga arka dadka la gaarsiiyo inaan geedaha ayaga ku guuleysanay. ninka beerta iskale numberkiisa in siinaya sawirada beertiisa laga soo diraa intusaya intaba inaan ku guuleysanay maasha Allah. alxamdulillah waa mahad. marka beeraleyda Soomaaliyeed waxaan leeyahay way suurtagal way geedaha in loo soo dhiibo carala'aan ayagoo hana la soo dhiibaa tufaaxa. laakiin geedaha yar oo kale cambaha noqdaan oo kale qofka carro kale codsadaa in carro loogu soo dhiibo kale waan isku day karnaa. laakiin way adag tahay wadanka lama ogola in carradiisa wadan kale loo qaado. laakiin haddii carro la dhiibo geedaha yarka lagu dhiibi karaa geed weyn laguma sameyn karo. marka waxa inoo suurta gashay inaan maarta geedihi aan dirno. sidoo kale cawska super napier waan dirnay asaga maasha Allah meel fiican buu asagana marayaa. waa in la soo wadaagaya habka loo diro bacla lagu xiraa 14 days oo kale maartay safar uu ku jiri karaa. waxa la rabaa 14 days wixii ka dambeeyay germination kiisa aadi karo. laakiin waxaan isku daynaa mar walba maalinta diyaaradda soo baxaysa inaan qofka ku aajino geedaha laftirkooda sameeynaa oo waqti badan inay qaataan lama rabo. diyaaradda kale markii biri aadayso kale Hargeysa kale waxaan sameeynaa maalinta ka horeysa geedaha keenaynaa. marka sida ayada waa inaan la socotiin. sidoo kale waxaan ku soo haray babaayada labada ugu fiican waa kalina papaya iyo babaygan kale la dhahayo. videoyada waa in la soo wadaagay babaygan kale la dhahayo asagana malkiya. labadaba abuurkeeda la idin hayaa ayagoo mira ah. laakiin intaas wixii ka soo haray ayagoo geeda la idin hayaa. intaas wixii ka soo haray geed baa la idin hayaa. kalina iyo malkiya papaya seedling waa hayaa. laakiin seedling within Kenya iyo anfacaya wixii dibadda ma anfacayo. taas iga ogaado. marka insha Allah taas la socdo. kalina papaya kurtigood mid kale dad badan ba xog iga wareysa babaygan ka waran. labadan babay sida aan sawirka ka arki doontiin. sawirana waa idin soo diri doona qof iga request gareeyo. numberka meesha ku qoran hal igala soo xiriiro insha Allah. dad badan baa ku dhiga xagee ka heli karnaa YouTube-ka channel-ka isoo qoraan. marka waxa waaye kalina iyo malkiya ayaku waa kurtigood waa gidigood waa wada dumar waaye. hal xabo nin ama noqonayaan 100% sure waaye. waana miro waaweyn yihiin. mirahooda waxa waaye 2 kg ilaa 3 kg ay u dhaxayaan. 2 kg yani 2 kg ilaa 3 kg u dhaxayaan. mid kale waa geedo gaagaab ayagoo gaagaaban bay miraha dhalaan sida geedii dhaadheeraa oo miraha dhalayo kala ma aha. taasna la socdo. waxa saddexaad waxay miraha ku dhalaan 8 bilood bay miraha ku keenayaan. germination inaad dhaqsiiso germination kan waxa la sameeyaa hab loo sameeyaa jirto. germination marka waxaynayso kulay step by step na waa idin tusayaa. waxa la dhigaysaa biya la dhigayaa every day
biyo weel baa ku dabooleysaa biyaha waxaa lagu darayaa hormone bahal veg max la dhaho waa idiin haynaa hormonkaas marka waxaa la sameynayaa hormonkaas marka lagu daro maanta kala qayb baa ku daraysaa 2 dhibcood kula daraysaa weel daboolan baa kula ridaysaa biyo subaxii kale waa ka bedelaysaa every 24 hours waa ka bedelaysaa berito sidoo kale waa ka bedelaysaa habeen walba waa ka bedelaysaa saasa ku wadaysaa 5 days marka aad saas ku wado 5 bari marka oo biyahaas ka bedeshiyo hormonka germinationkiisa dhaqsiinaysaa kadib waxaad gelinaysaa meesha loogu talagalay bahalihii oo bicihii loogu talagalay sidaad ka arki doontii bacaha loogu talagalay waa idin tusi doonaa bacahaas markii lagu rido ciidii carradii iyo digadii xoolaha isku jirtay baa oo maartay oo yaa iskula ridaysaan nafaqada lahayd marka iskula waxaysaan kadib waxaa sameynaysaa wuxuu ku qaadanayaa 14 days kaas markuu ku qaato germinationka after 14 days buu soo baxayaa then nursery qaybtii aad ku barbaarinayso wuxuu ku qaadanayaa 2 bilood iyo bar 75 days adigu waa 75 cisho iyo ku qaadanaya 75 bari iyo ku qaadanayaa kadib baa beerta u transfer garanaysaa dhammaantood 4 bilood meesha ku gaarana wuxuu ku keenayaa xayigu buu keenayaa ama ubaxi ama booq waxa u taqaano uu keenayaa marka waa sidaas insha Allah la socdo 8 bilood iyo 9 bilood waa ku guranaysaa 4 sano 3 sano ilaa 4 sano yani miraha ka guranaysaa waxa waa calaageedku wuxuu ku siinayaa halkii babaay ama malkiya noqoto ama kalina 100 ilaa 150 mir siiba 100 mir baabadana maqsi ya adiin loo badiyaa 100 mir hadii qofka hadaa ku dadaasho ka badan uu ku siin karaa waxa waaye ilaa 3 season oo kale leeyahay laakiin waa isdaba raacaya miraha waa isdaba socdaan ilaa 3 season 2 bilood 3 bilood kala guranaysaa waana safar dheerna waa ka bixi karaan mirihiisa waa macaan miro waaweyn oo aad u macaan oo red ahaan xigo guduud jaalle guduud xigo waaye marka insha Allah kuwaasna waa sidaas la socdo haddaan ku laabto geedihii marka idin soo dhiiba geed ciidda laga bixiyay u noolaanaya taas qof isweydiyo waxa waa geed ciidda markii laga bixiyo waxaan ku tiriid garanaynaa bahal la dhaho hormone iyo sidoo kale waxaan ku sameynaynaa kale bahal la dhahayo routine hormone yaa la mariyaa maalinta adigana markay ku tagto waxa sameynaysaa routine hormone iyo waxa isla marinaysaa bahasha dacarta la dhahayo yaa xididada laga mariyaa kadib waxaad gelinaysaa meesha loogu talagalay oo annaka aan ku dhahno meeshaas geli mar walba waa nala soo xiriiraysaa oo annaka nagu xirnaanaysaa waa nala soconaysaa ilaa geedka ku soo baxay ilaa xilli walba annaka inaan kula socono kula shaqeynaa isku daynaa adigu un wada shaqeyn iyo maaragtay laga helo dhankaada iyo furfurnaan iyo maaragtay ina isbarta lama rabo ina wixii dhibaato kugu soo korto nala soo wadaagta laga rabaa sidoo kale nafaqada geedaha waa idin haynaa nafaqada geedaha u fiican oo kale hadaad rabtid qaybaha u fiican abuurka tayaysan oo kale yaanyada haday noqoto kabishka haday noqoto any abuur oo tayaysan galeyda haday noqoto sunflower haday noqoto waana wareysanaysan marka insha Allah kulli qofkii Facebook-ga soo galo wuxuu arki doonaa meel wax ku sawiran tahay catalog sida in tusi doono kale in ka tusi doono catalogaas waxyaalaha ku qoran oo kale waad arki doontaa waxyaalaha alaabaha aan in fududeyn karno Kenya kale in kaga fududeyn karno iyo alaaba anaka aan gadno kala jirto qalab kale beeraha oo in fududeyn karno oo maartay helitaankeedii iyo qiimaha ugu fiican lagu soo heli karaa anaka in soo fududeyn karaa jiro marka mar walba nala soo xiriiro insha Allah wuxuu hadii aan xataa ka qaban weyna telefoonka cod noo reeb qoraal noo reeb message noo reeb WhatsApp kanaga 24 hours waa nala soo xiriiri kartaan mar walba waa in soo jawaabeena insha Allah oo inaan mar walba qof walba maartay oo inaan sida ugu wanaagsan ugu soo jawaabna isku dayna insha Allah sida ayada sameeyo nala soo xiriiro dadka beeraleyda Soomaaliyeed hala jaan qaadaan dadka kale insha Allah marka saas sameeyo insha Allah